بسم الله الرحمن الرحيم ورصحافات وزارة أوقافة أرمها الدين تدولة كوفر قلبت صوماليا كهرتجع إسباروين كشرع الدرادة وعنا صيب دراه إن أولي كسي أرقنا ودوين كدل كان مهم كواه إسباروين شرع الدراه أو أي دكتان كوحد دنا جاره له تاني وحي ستوسة خطر وين وقطة هاي ورمركا نبضة إيو مدني مدى ومدى صوماليات إسباروين كان وحي السببين نبتقلي درو ورستاق نقالها كلا فوقانشو بولشو كلا شكي إيو أمن الدر باسن كاسو أي أديك سنة أيان شخصيات دانا قارة كله عرقلدين تديقانا دولة كوفر قلبت صوماليا وزارة أوقافة يارمها الدين تدولة كوفر قلبت صوماليا وحي حوجين إيسا سبو حدنا أقرب تاغن تهي xoogaga amniga ee wada howlgalka sifeynta isbaarooyinka iyadoo horeyna madaxda dawladda go'aano cad ay ka soo saareen inaan la aqbali karin isbaarooyin sharci darro ah shaar walba haloo geliye sareenta sharciga xoojinta iyo kala dambeyn ku ah amniga iyo nabadgelyada deegaanada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya inay si wada jir ah ugu hortagaan isbaarooyinka isla markaana ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarka deegaanada waxaan cod dheer ku sheegaynaa in ay bannaan tahay in lala dagaalamo lana tirtiro kuwa xadka gudbay kana soo horjeeda nabadgelyada habeen iyo maalinna u taagan dhibaateynta dadweynaha masaakiinta ah ee ku safra wadooyinka deegaanada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya إلهي سبحانه وتعالى إساق أو كهد لا يكون نوع عسى أين بنانتها إن هل من لوغسو وذجيست قرآن كيسا وحكويري إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم waxaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya aan u sheegaynaa in ay iska dhiciyaan nimanka qaadicu dariiqa ah ee wadooyinka har iyo habeen u taagan inay dhacaan antidooda kufsadaan habeenkooda salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi wa kafaa salaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin sir xasaasi ayaan meeshaan idinku siin doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo codka idiin soo horumaray waa wasaaradda diinta iyo awqaafta dawladda Maryland oo ma arkayse luuqad adag kula hadashay isbaaraystayaasha isla markaana shacabka state-kan Maryland ugu baaqday in ay si toos ah ula dagaalamaan isbaaraystayaasha iyo isbaarooyinka iyadoo wasaaradda ay soo daliishatay aayaadka quraanka kariimka ah xukunka ku dhigan samaawiga ah isbaarooyinka haweyn والذي كسو دولي دقالك وحا هذا ستوسا أصو قلي حسن شيخ محمود أيها ستوسا أصو قلي أو أصو دردقتي سرتاسان أصو قلي وقيسيسنا عن أصو دقاي بس لكن انت سرتاسي عن تابانين ردود الرحوين إيا حالك ماشو مرايو قبر إيا قفك الله وضع الله مكالا قريه أيان رباه إنان ماشان كسي دايو قوانك الدولة مايلان بيدبايا لنا in aan idinku daro haddii ilaahay uu ka raali noqdo dawladda Maryland waxay yiraahdeen 90% ciidamada dawladda federaalka waa annaga waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer Maryland anoo ku hadlaaya afka warbaahinta Southern Media Corporation kana wakiil ah ciidamada dawladda Maryland in shacabka reer Maryland mar dambe aan la gumaysan doonin qodobkaas isaga ah looxaanta inaa ku dhigataan ayaan u baahanna midda labaad askarigii maleeshiyaadka isbaaraystaha shalay toole la qabtay isagoo sii baxsanaya waraysi buu dhiibay sirana waa uu sheegay wuxuu tilmaamay in ma arkayse 9 qofood oo dhaawacyo ah isagu uu meel ku og yahay hadda shakhsiyadiisa duurka ay ku jiraan isla markaana ay la yihiin meel ay ku baxsadaan maadaama xuduudda oo dhan ciidamada birjeexa beerka madow ee state-ka Maryland iyo qubaradoodu taktiik military ay dejiyeen wada walba ay xireen fadhiyaana waxa kale oo uu sheegay
askarigaasi ama maleeshiyaadka ahaa in ma arkayse qaar badan oo maleeshiyaad ah ay ku go'doonsan yihiin halka loo yaqaano ma arkayse macnaheedu xuduudda gobolka Hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose duurka ay ku jiraan suuragalna ay tahay haraad iyo gaajo inay u dhamaadaan bacdama wadadii ay ka bixi jireen kana soo gali jireen dawladda Maryland ay si toos ah u xidhay ciidamo ayaa is soo dhiibay maantay oo maleeshiyaadkii isbaarooyinka dhiganayay ah oo ka soo jeeda beesha Hawiye gaal jecel uu ka yahay kuwaasoo danta ay u run sheegtay haddana lagu hayo degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose qaar kale ayay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay is soo dhiibaan duurka hadda ku jira oo doonaya inay noolaadaan oo kali ah hubkana ay dhigaan xirashada siinka dheer raggii shalay abgaal iyo irir Soomaale sheegay in Maryland dhammaan iyo isirka digil aw mirifle sheegtay in 90% ciidamada dawladda federaalku ay iyagu yihiin joogaan Muqdisho joogaan Galmudug joogaan Hirshabeelle ciidamadii waxay ku xidhmeen dhamaantooda madaxweynaha dawladda Maryland Abdicasiis Laftagareen ayay toos ugu xidhmeen isaga ayaana taliyaha guud ee ciidamada u ah maantay Soomaaliya wixii afka mayga ku hadla way la xiriireen organatiba loo dhisay xasan kama amar qaadanayaan waxaana go'aanka uu yahay ay wacad ku mareen haddii la isku dayo in ceelasha biyaha ama siinka dheer ay xidhaan Hawiye oo markayse ay isku dayaan inay dagaalamaan in xamarna qof walba qorigiisu la soo bixi doono ciidamada xamar gudaheedan ay ka bilaaban doonto dhammaan dawladnimadii Soomaaliya wixii ciidan ku jiray state-kan goboladaasi ay ka soo bixi doonaan dawladda Soomaaliya hadda jirta ee dawlad beenbeenta ahna meeshaasi ay ku burburi doonto dawlad dambe aanay jiri doonin hadda ciidamada gobolada dhexe jooga kuwa Hirshabeelle jooga wixiiba webiyadan ku abtirsada mayga ku abtirsada digil aw miriflaa kow ay ka yihiin waxay toos uga amar qaataan Abdicasiis Laftagareen xisaabtu waa halkaasi waxaan rabaa sirta anoo ku sii siqi doona wax yar gadaal baan u dhiganayaa sirta waxaa dawladda Maryland ka go'an qabri iyo qofka loo wada lama kala qariyo in ay ku dhiftaan isbaarada taala halka loo yaqaano garas bandiire oo ay abgaalku 20kii sano ee 30kii sano ugu dambeeyay ay dhiganayeen isbaaradaasi in lagu dhuftaa waa go'aan ama Hawiye dhamaantood hadda yimaadaan taangiyaha keensadaano ama hadda haysaga cararaano dalkan go'aanka baydhabo yaala waxa weeye Soomaaliya oo dawlad ah qof walba deegaankiisi uu maamulanayo isbaara ay ka dhamaatay ayaa dawladnimada la wadaagi doonaa ama way ka go'ayaan go'aankaasi waa go'aanka hoosta ka xariiqan magaalada Baydhabo waayeel iyo siqiir lab iyo dhadig saraakiil iyo madaxweyne xildhibaan iyo kulli ay isku raaceen taasi maxaad u sheegtay macallinka lugayow gacanta la isla galayaa in aan sheegana waa ku qasbanahay nin walbana tabartiisi shanta qaaradood meesha uu joogo sidoo kale raxweyn waxaa ka go'an in degmada Afgooye saldhig ay ka samaysato ciidameed oo dawladda Maryland ka socda meeshaasina sida hadda ay u degeen yaqbari weyne saldhigii ay ka qabsadeen isbaarooyinka yaala degmada Afgooye oo Hawiyaha 30 sano ay dadka ku dhibaataynayeen mar hadday is cishan waayeen mooriyaantooda dadka dhacaysa meeshaasna in saldhig laga dhigo oo dawladda Maryland ay manage garaynayso isla markaasna amniga ay sugayso isbaarooyinkana hilfaa ay ugu qaadayso iyadoo wixii shacab ahna meesha ay ku noolaan karaan hadday Hawiye yihiin hadday daarood yihiin hadday dir yihiin hadday digil aw mirifle yihiin iyo hadday dan wadaag yihiinba waxaad moodaa in xisaabtu ay soo bedeshay gacanna la is saarayo markaan baydhaba go'aan ka soo baxay waxa weeye in hawshan la israaciyo oo ma arkayse wax fursada aan la siinin isbaaraystayaasha 30kii sano xishoon kari waayay ee go'aansaday in ay dilaan oo dhacaan oo kufsadaan dadka Soomaaliyeed ee wadadaasi maraya sifa ka baxsan shariicada islaamka iyo midka bini aadanimada ah
sirta intaanan u gudbin xasan iyo sida dagaalka uu u soo galay tooska ah waxaan doonayaa in aan sheego sayid cali macalin daa'uud oo ah ninkii Saleebaan Habargidir xaaskiisii gubay nolosha ku gubay luul abdalcasiis oo maanta la soo saaray maxkamadda sare iyadoo 2 jeer maxkamad dawladeed ay horaan xukun ugu riday waxaan rabaa maxkamadaasi go'aankeedu waxa uu noqon doono sida qorshaysan qaybka alla og laakiin qorshaha maxkamadda ayaanu doonaynaa ninka ayuub ee maxkamadaasi jooga isaaqa ah waxa uu ku ridi doonaa xukun toogasho ah sayid cali macalin daa'uud balse laakiin marka xukunka toogashada lagu rido Habargidir waxay dhihi doonaan dib u eegis xukunka ayaanu rabnaa waqti inaan qaadano oo waqtina la siiyo taasoo ka dhigan in ay doonayaan waqtiga inay ku dilaan sidaasi iyadoo oo inta maxkamadan aan la isla gaarin xabsiga ay isku dayeen in ay mar kala soo baxaan uu xanuunsan yahay iyagoo dhahay tiina ay fashilantay sidaan idiin sheegnay mar labaadna xabsigaba ay weerar ku qaadeen laakiin ay ku fashilmeen markii dambe nin dan wadaag ah furihii uu tuuray furahaas hadday gacanta ku dhigi lahaayeen oo shabaabkooda iyo sayid cali iyo qoslay kulli ay la bixi lahaayeen taliya shub waa kan taalada u dhisay ninkii dan wadaaga askariga ahaa ee ma arkaysa furaha tuuray ee meesha ay ku dileen ay ku qaarajiyeen way sayid cali macalin daa'uud macnii dil toogashaa lagu xukumi doonaa marka ugu dambaysa maxkamadda balse laakiin waqtiga inay dhumiyaan qareenadooda waxay dhihi doonaan dib u eegis baanu doonaynaa iyagoo fursad raadinaya ay ku badbaadin karaan way cabdi qaybdiid oo loo ballan qaaday in saybiyaano dhulka wax laga siin doono dabdamiska kadib markii uu ka raray reerkiisii reer hilowle saldhigii ugu weynaa ahaa meeshaasi waa lagu booday hadda markii 2 habeennimo 3 dadkiisii xabadda dabada laga geliyey oo meesha laga raray qaybna uu ka noqday raridda gobollada dhexe uu iska aaday hadda waxaa weeye siismadii wixii loo ballan qaaday waa looga baxay waxaana maanta uu iskeenay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu tilmaamay dastuurkan maalinba warqad lagala baxayo waxaan ogolaan karna ma ahan dalka loo istaaga badbaadadiisii sidaan sinna anfacaysa ma ahan waxaan dawlad ma ahan dilla Soomaaliya waxaa gala qofkii dan leh annagu ma khiyaanoolayaasha dalka ayaanu qayb ka noqonaynaa dawladnimo iyo qarannimo iyo Soomaalnimo ayuu ma arkaysa macnihii kaarkaasuu marsanaya mar haddii lagu booday xasan sheekh maxamuud ayaa astaantiisu waxay tahay in ma arkaysa 9 qof oo isku dhex jira isagoo ah markuu kugu danaysto markaas kadib inuu kaaga baxaa ballanta sida la bartay haddaba cabdi qaybdiid waxaa ka go'an inuu la dagaalamo xukuumadda xasan sheekh maxamuud oo ballantii uga baxday dantiisa gaarka ah qodobadeenna dhulbahanta ayaanu ka faalloon doona maantay macnii in badan yacni dhulbahantaha isagana bareega looga booday oo hadda yacni xasan sheekh maxamuud madax xanuun uu ku riday gabdhihii waxaa la ii diray ee afka mayga ku hadlaayay maxkamadda la soo taagay oo 14 sano jirada ahaa laga soo diray baay iyo bakool iyo gada iyo jubbooyinka dhulka Mayland ceeldheer dhulka wacaysle ee abgaal hawiye loo waday oo aabbayaasheen ayaa nimanna siiyey yiri nimankeenaan u soconnaa qaar baa waxay dhaheen soo baar waxaasi in la abuuray oo xamar macnii la sameeyey oo la rabo in Mayland sumcaddeeda lagu dilo iyo in kale baaritaan baanu gelinay waa xaqiiq gabdhahaasi nimankooda ay u socdeen nimankooda raxweyn weeye ceeldheer iyo meelahaasi ayay joogaan nimankoodu marka waa naago ama qasab ha lagu siiyo ama yaan lagu siinin laakiin nimanka ay u socdeen waxay ahaayeen niman raxweyn ah oo ka taliya dhulka abgaal ama dhulka hawiye oo shabaab ah qodobkaasina waanu soo xaqiijinay sirtii ayaan u geli doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo si waqti fara badan aynan idinka dilin mar kale aan ku celin doonaa raxweyn xaniyaaga fuul dagaalka waxaa si toosa u soo galay xasan sheekh maxamuud baa u soo galay ama waa la muuqdaa lagu muuna yeeshaa ama waa la maqan yahay oo madarkaba lama tago geeridu waqtigu qaar ka wanaagsan noloshu wahaabkaa isaarani
أما جبر وذات ضلي وعن أروستان وهاب كائسارني وناجا الراحة وحكود جاي مان رحوين تويني وعد بقى إنه يال دول كان إنه حروبه واي مركان صدق سنة كدب سرتا أن هينو أو أن ربنا إنا أسوق من الرحوين عاو حوي إذا مضى وحي فكر نقضي وحي موريان أها ضمان سيد دقدقة أيو أرورنا يا حسن شيخ محمود ولا أروري أرورنا يا مان وحال سوق جاي هل خلوه يقانو مكوش هجا برت اللي سوق جاي مكوش هجا ولا سيقانا صوماليدو واستقانا كلية الجالسيات أيا وحا حسن ويسوق جاي وحي فكت أها يا وحي موريان أها وحي أردن ماشى أيا هذا اللي يسوق جاي عوضة أما بريتولي أيا لصين ربا هوب كودا وحانا مشار كودا ديباية تركيا أو معنيه لخل دايو أولوليه وعيدا مقرن عيدا كاسي وحالله صودا قبل كشبه الله هوسي وحالله صودا إسباروين كتحسيلي الدقل أو مرفلها أي دونيان إن أي كقادان ماشا يأفقوي إيوه يقبري ويني وهذا إسبارة لغا قاضي أيا الله صودا مركا لصوك حينا ينا لما نهي الربو وحي كسو دوليان ميلان يعيدا مدى دراويشتا قرشان لدجي وحوي وحي نحدحادنا يان وحي نحدحادنا يان dadka isdagaalay ee dhulka isla leh meesha degan ayay dhexdhexaadinayaan taasoo ka dhigan mooriyaantii lagu soo ururiyay tuutaa la soo geliyay qarashka dawladda federaalka Soomaaliyeed Turkida ay bixisana Turkida wanaagsan ee la khalday ay biilayso loo soo dhibay beebayaasha dalka in yaqbari weyn ay soo dhex istaagaan iyo garas bandiire iyo afgooyi markaasi kadibna isbaaraystayaasha kale ay garab siiyaan hirshabeelle markaasi ay ka soo galaan dhigta dhiigga loo daro ciidamada Mayland oo hadda isbaarada la dagaalamay doonayana isbaarooyinka kale in ay qaadaan weerarkaas ku soo wajahan ma arkaysa macnaheedu digil aw mirifle iyo biimaal inta la degan xitaa hadii biimaal ay iri Soomaaliyiin lagu sabto iyagay u taala laakiin waxaan rabaa inaan sheego waxa weeye raxweyn in la gumaada la rabaa la tirtiro qaabkaasina loo dhameeyo ma ku dhacaa hawiye inuu weerar ku soo qaado toos ah kuma dhaco gacan baa la isa saaraya ciidamada gobolada ku maqan oo dhan taliyahooda waa lafta gareen hadda go'aan bayna ku gaareen in ay dawladda Soomaaliyeed meesha ay ka baxdaa dagaal gacanta la iskula galaayo waxa afka qalaad loo yaqaano macnii hand into win it u dhaha ama emily u dhaaf ingiriisiga dagaal gacanta la isla galo oo hubka inta la iska dhigo yani mididaba waa hube yani hubkan darandooriga u dhaxay inta la iska dhigo marka ugu dambaysa rasaasta markay go'do gacanta la isla galo fashaq midi faas waran qaniyo qof walba intuu kari karo dagaal noocaas ah soo socda dawladnimada Soomaaliyana waxa weeye meeshaas bay ku burburaysaa gacan baana la saarayaa isbaarada tixsiila taala gacan baa la saarayaa isbaarada afgooya taala gacan baa la saarayaa isbaarada ekis control taala xamar gudaheedana way ka bilaabanaysaa waa hadii siinka dheer ay isku dayaan in ay macnii xidha xasan sheekh maxamuud baa dagaalka toos u soo galay wixii amiin jeesow meelahan uu idin kaga sheegay waa dagaalamayna waxaan dhahaynaa waxaanay ahaayeen baasha way soo karbaxday ciidamada kuliyada jaalisiyaad ku jira berri ama caawa ayaa hubka loo qaybinayaa waxaana loo soo wadaa yaaqbari weyne waxaa loo soo wadaa garas bandiire oo abgaal isbaara u taalo waxaa loo soo wadaa afgooye dhexdhexaadin bay u soo socdaan baa la leeyahay waxaan arkayay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo madaxweynihii hore ee kumeel gaarka warqad uu soo qoray uu leeyahay baaq nabadeed baan u dirayaa beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay yaaqbari weyne oo dhulka isla degan oo leh waxaan u sheegayaa raxweyn Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Soomaaliba waxaan u sheegayaa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud markay kulmaan raxweyn ay Xasan Sheekh idin roon
حسن شيخ هذا بيال إذن كسو وضع إذن سو ويرايو يا شيخ شريف حسن شيخ الرون محان ساس أولي شيخ شريف شيخ أحمد شريف حسن نيكا هوستا قوة طوائسة قبر أيسيسيين مركو مدحوينها أها إلا يبورها كبا أي إسبارات لكتين عيدا ماذا أبقال شيخ شريف شيخ أحمد وحوكوكو شرعيين يا ونكي يرباعي بكل مركي حسبية وحوكوكو شرعيين يا نين هرشابه لهذا كي مادي حدنا او عرري markii isbaarada macnii dadka uu ku dhacay macnii laga eriyay ayuu wuxuu kaaga dhigayaa dhulka in uu kula leeyahay wuxuu ku soo durxulayaa hadhowdi ciidan la soo diro dadkan macnii ha dhaxdhaxaadiyaan qof wax kula leh iyo qof aan wax kula lahayn macnii qof wax kula leh iyo qof aan waxba lahayn yani qof dhulka leh iyo qof aan waxba kula lahayn ka waran ma arkaysa ku heshiya dhulkaaga hadii lagu dhaho war qof gurigaagi معني كوجود لجي أو لجيري ولا ميا ها نين كان جوري جا قيب كسي شاطي جا قف كل لجي أما جبري جرب صار كاجا أما جرد داد أما درع حاجة ناك أم كلها هين هدي كوجولات لكتو أو معني علماء نحدين تأي كلهان وإذا نحدين هنا جبري جرب صار كاجا أما جرد داد أما درع حاجة جبردان كلا كوجولات لجن معني قيب كلا جوستا وهذا الذين قف كاسي ما كنت لي بيسوي كل نحدين waxaan u sheegayaa marka xasan haduu ku yiraahdo macnaheedu waa kula dagaalamaya wixiisu uu cadeystay isaga haduu ku dardari karo xasan sheekh maxamuud uu ku dardaraya kili adag male adkaysi male hadii dhirbaaxa ah ku dhufatidna uu ka joogsanaya bareegu qabsanaya laakiin sheekh shariif sidaasi ma ahan af qurxoon buu ku hadli miskiin buu iska dhigi kan ku dilaya kowna waa isaga marka waxaan rabaa inaad ogaataan dhexdhexaadinta sheekh shariif warqada uu soo tuuray in ay meeshaasi ka socoto marka sidee qof gurigiisii loogu yimaado lagu dilaayo aad u dhihi kartaa fiiri isbaarada aayadda quraanka dawladda Maryland wasaaradda u qaafta ay akhrinayso sheekh shariif muxuu akhrin waayay muxuu u dhihi waayay isbaaro waa xaraan gobolada uu ka soo jeedo markuu joogaba isbaaro waa xaraan u leey dadkiisi inay isdhacaan uu diidaya laakiin dadkan Soomaali weyn wadadan ay marto oo digli mirifle macnaa lagu dhibaataynayo gabdhooda iyo wiilashooda hantidooda macnaa kuwa isbaarada dhigtay aayadda muxuu ugu dul akhrin waayay ilan maxaakim islaamna uu soo maray fulintana waa uu joogay xaqa muxuu uga gambaday madaxweyne qaran uu noqday muxuu u dhii waayay war dadkaas isbaarada dhiganay qaado dariiqa ah xukunka kuwa isbaarada dhigtay deegaankayga sidaan sheegay ayay la mid yihiin way gardarayeen muxuu dhii waayay laakiin waa la heshiisiina ha heshiyaanu ha wada fariista ma isbaaran la heshiinayna anaga ma isbaaran la heshiinayna maxaa noogu hoosaasinaysaa sheekh shariif sheekh axmed marka raxweyn waxaan u sheegayaa ninka lixda gobol idinka kala gooyay waa xasan sheekh ونينك هذا ويرك إذن كوا وحسن شيخ نينك الدجال كتوس كوسو قال وحسن شيخ نينك بابياش شو حسن شيخ شيخ شريف شيخ أحمد يا حسن إذن رون بكاس هو عدي وركيس وكلية أنا هو إسدلينا وكدلايا إديار جرو هذا إسكا كيد حسدنا وكا عرارايا حسن ساس وسياسة ديس أنا جنا كاسا نورون لكن نينك جبران إذا كجورسدي وضفي عناتين علماتين معني وإسلام كاسي مركا وجودن بيسا كان كريمين دونه ويرحوينه هذا إسكا فيرين مركا شاكدان وحن إدي شاكايا ولا كلا جوري دجال كحسن شيخ محمود بعطاس قصة جلي نمانك شلي إذا عدى سو استاج إسكا ما سو استاجين وحي أجادين هرتا إسباردان والله وضلها حسن باشير كلها هوية ودن سياسيين تودا لقى بيلاي جواديدان كمنانك كون $1 معني القاضي قبلها لا إسكا كفصنايو هدي لربها هنتيد هدي ذهب أسارية هاي بابورت اللي دعايي هوية بشيكيال كو جدناي غوريا كل سناي سياسيين تودا واي ها وهي سياسة لوطلي هاي بيع هاي المعارض محافظ وقدام بينتي مركا بلي دوغل سلدغنا ولغو هاي سراكيش هوية معني إن إسباردان معني إسبنديرة إن يسي إلاليان أفقوي إن يوديبتو إسبار يعني واحد لا يسكو أوجي هاي بيع هاي مركا واحد ربا إن أنشاغو oo aan ku cadeeyo nimanka shalay banaanka soo istaagay mar isbaaradan hadii la galay kulaylka gaaray Soomaan waxay ogaadeen garas bandiirana in lagu soo socdo oo iyaguna baabuurta lagu dhaco dadka lagu dhibaateeyo oo gacmo dulle wiil uu dhalay waa generaal qaranka Soomaaliyeed ah waxa isla ah wiil uu dhalay forfora joogay ilaa intaas lagu hayay diiday guutada toddobaad inay hoos tagto qaybta lixdamaad ee Baydhabo nidaamka seerjitada diiday oo macnaheedu dadka deegaanka aan u dhalanin
macnihii keliya la keenay laga ilaaliyey dadka deegaanka baydhabana go-aanka ay qaadata waxaa weeye dowladnimada ha burburto gacantaan isla gelaynaa ama waa sifaynaynaa isbaarada ma oolaan karto nimankan marka bannaanka soo istaagay waxaa weeye oy ka cararayaan yaa taas haddii lasoo dardaray garas bandiiraa lagu soo socdo waana lagu soo socdaa dogow isbaarada taxsiile iyo garas bandiire oo odayaasha waaweyn ee hawiye gadaasha ay ka fadhiyaan jenaraalada leh siyaasiyiinta leh xildhibaanada leh oo lagu naasnuujinayay dhaca shacabka soomaaliyeed ee daarood leh oo dir leh oo danwadaag leh oo hawiye leh oo ma arkaysa macnihii may iyo maxaa digil aw mirifle leh stateki uu u soo jeestay way ogaadeen baydhabana malaaqyada way saxiixeen dowladda soomaaliyeed in ay burburto ama in isbaarooyinkan la qaado go-aankaasay qaateen xasan iyo reerkiisana way ka caddahay isbaarooyinkan haddii la qaado xaggeen aadaynaa waay shabeelladan hoose xasan markuu imaanahay go-aankiisa waa in la gooyo wixii waa la goyn la'yahay hadda marka macnihii ciidamadii kuliyadda jaalisiyaad bay ku xaraysan yihiin raxweynay waxaa loo soo wataa in la idinku gumaado dhegta dhiigga la idinku daro waxaa samayn lahaydeen idinkaa og amaa baydhabo way soo jeesatay maantay lafta gareen wasaaraddiisa diinta iyo awqaafta ayaa waxay tiri gala dagaalka gala isbaarada dhegta dhiigga u dara raxweyn ciidamadoodana waxay toos ula xiriireen dhammaantood waxay ku yidhaahdeen madaxweyne lafta gareen iyagoo unugyo iyo urur iyo koox iyo waax u dhisan adiga ayaa taliya noo ah soo dhaqaaq haddaad tiraa bartaa ku dhufta taliyaha guud ee soomaaliya adaan kuu naqaanaa wixii may ku hadlaayey furimaha joogay oo hawiya dhulkooda difaacayey hirshabeelle ma arkaysa galmudug xisaabta meeshaasi ayay ku go'an tahay magaalada muqdishona wixii raxweyn oo qoryo sitay hadday ciidan yihiin haddii guryahooda dhammaan hubkooday diyaar garaysteen waxaana go'an hadday dhahaan siinka dheeraan goynay ciidamaan xagga geynay xabadda inay ka bilaabato dhankaasi garas bandiire afgooye dhankan inay isqabsato xamar gudahoodana raxweyn iyo hawiya inay isku cunaan nin walba u taagtaa marka wixii nool ayaa noo hari doona waxaan rabaa ma arkaysa macnihii inaan isku bixis aan ka dhigno barnaamijka haddii ilaahay uu ka raali noqdo sheekada aad bay u kulushahay ma arkaysa macnihii dagaal toos ah oo dalka soomaaliya uu ku kala tegaayo ayaa la galay awalba waxa digil iyo miriflana ay raadinayeen sida ay noo sheegeen waa intaas sayid cabdiraxmaan oo soo dhowow kuliyadda jaalisiyaad ciidamaha lagu xareeyey qalabka caawa la siinaya ama beritoole waxaana loo wadaa yaaqbari weyne taxsiile isbaarooyinka inay difaacaan raxweyne dhegta in dhiigga loogu daro raxweyne wasaaraddeeda diinta ee awqaafta iyo go-aankeeda waxaa weeye in isbaarooyinkan dhegta dhiigga loo daro haddii dowladnimo ma arkayse macnihii lagu waayahay xataa in la waayo ciidamada oo dhan istaan bay galeen lafta gareen bay ka amar qaadanayaan kuwa federaalka ah ee mayga ku hadloo dhan tallaabadaasi sideed u aragtaa عليكم معلم وانكم سلامي هذه وخيرت كلا الصومالية ما يبعاتي بدمانتين ليه وارنتاس وحوي أرنتاس وطلابعد وحوي وطلابه هرو لغو بانا ماركتي مملكة كونفور قلبيد يمدحوين لفت كران إنه هرو قد واقعان حسن يكون حديث وهذا معناها الرياض لا بنوشيك حسن يكون حديث وحوي وإسبارك النول وعدد عن شرعي وهو كان سمين وعدد عن شرعي إسلامي مرهبين والشيخ شريف الشيخ أحمد مشير بوكولي طلو إسباروين كان كونفور قلبيد يلا gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan dhulkan ay iska galaan maaragtay goboladan shabeellaha dhexe shabeellaha hoose haddii uu macnaha ku guul daraystay in maxaan ku dhahaa gobolkiisa shabeellaha dhexe isbaarooyin ka qaado ugu yaraan haddii dadka wuxuu ku yidhaahdaa maaragtay hala daayo hala iska joojiyo laakiin marka koonfur galbeed ay timaado waxaad moodaa inay tahay arrin kale oo uu maaragtay ku dhiirigelinayaba marka dee xasanna waa baan ognahay waa aabbaha isbaarada marka niyo waxa waaye maaragtay meeshan waxa weeye dhibaataa ka jirta xasan dowladnimo rabo xasan wuxuu rabaa inay soomaali isku baabaado gurbaankii qabiil uu tumaya hadduu ilaahay kuu rooyay dhalinyaro badan oo maaragtay beesha abgaalo xasan hore iskugu dhaxsanayeen waxaad moodaa inuu maaragtay inuu soo xero geliyey oo uu yiri dagaalka qayb ka qala oo maaragtay gala haddaan waxaan garan waayay abgaal waxa uga jira maaragtay shabeellaha hoose koonfur galbeed maaragtay arrintani waa khalad waxa weeye reer koonfur galbeed shareecadiina waa xaggiina xalayna saasaan nidhi waa dhinaciinay taallaa hadday istaafaco rag noqda waaye madaxweynaha soomaaliya ciidamada hadda kuliyadda jaalisiyaad uu ku xareeyey kuwii uu eriyey fakadkii wixii oo dhan intuu soo xareeyey mooryaantii
tuuta loo geliyey baa cawada hubkooda la siinaya waxaa la leeyahay macnihii waxaa dhexdhexaadinaysaan beelaha isku dagaalay iyo aqbari weyne iyagoo beebayaal wata cashuurtii dalka mushaar la siinaayo ayaa la soo dirayana waana haybtiisii khatar intee la eg baa ka imaan doonta haddii digil iyo mirifle iyaguna ay go'aan ku gaareen dhammaan ciidamadoodu in ay dagaalka toos u galaan oo isbaarooyinka la dagaalamaan khatar intee la eg bay macnihii dowladnimadii ka waran laxan haddaa saartay waxa weeye dowladnimadii hadda way burburtay ma aqaan maaragtay madaxda digli mirfle ku madasha dowladda dhexe waxay ka samayn doonaan oo hadduu ilaahay ku roon yahay gudoomiye aadan madoobe iyo wasiir gaashaandhiga TikTok waxay samayn doonaan waana runtii maaragtay wax laga yaqaaqsoodo in TikTok oo ku magacaabo wasiir gaashaandhiga uu maaragtay ciidamo beeshiisa iyo dadkii uu kursiga ku matalayay maaragtay la doonayo oo la rabo in lagu xasuuqo inuu isagana maaragtay uu ka aamusnaado ama hadalkiisa la maqal marka hadduu xasan sheekh ciidamada kuwii hore baxsadka ahaa iyo kuwa kaleba uu soo ururiyo uu soo xareeyay maan uu soo xareeyay caawa hubkooda la siinaya haddaanba kuleeyahay kuliyadda jaalisiyaad soo ma taqaanid si fiican kuliyadda jaalisiyaad ay ku jiraan way ila tahay maahan hadday ku jiraan warka waa war degdeg oo sir aniga macnaa aan sheegaayo waa cad hubka caawa la siinayaa mushaarkana turkiga dhiibaayo turkiga marka waxaa loo sheegay ciidankan macnaa nabad bay ka shaqaynayaan dhexdhexaadin bay u aadayaan mushaarka dhiib isagaa dhiibaayo laakiin waa ciidan fakadkii wixii la ururiyey oo hadda berri ama caawa hubka la siin rabaa waxaa loo soo wadaa yaaqbari weyne waxa weeye aadanow waa inuu maaragtay madaxweyne laftigareen sida ugu dhaqsaha badan warqad wargelina iyo warbixina uu u qoro safiirka turkiga ee maaragtay magaalada muqdisho jooga sidoo kale turkiga waxay ku leeyihiin xafiis military ataajeeya ama arrimaha militariga waa in labadaan in sida ugu dhaqsaha badan saacada gudaheed hadduu ilaahay ku roon yahay lagu report gareeyo oo loo sheego intentionka iyo waxay damacsan yihiin ciidankan oo ah inay gobolka xasuuq geystaan marka turkiguna maamulka koonfur galbeed dowladda koonfur galbeed aad bay isku fiicnaayeen arrintaas waa in lagu dhaqsado waa in laga hortago su'aashaadii horena waxa weeye dowladnimadii Soomaaliyeed maxay arrintani macnaha ay ka tacalluqaysaa waxa weeye dowladda Soomaaliyeed haddii xasan sheekh hadduu ilaahay ku reeyo saa u dhaqmayo oo xasuuqa baan keenay waa lagu kala tegay way fashilantay maaragtay cidda ma isku imaanaysaa ma jirto xasanna wuxuu noqonayaa sidii awal baa ahaa oo ah madaxweynaha gobolka banaadir way xasan sayid cabdiraxmaan oo haddii yacni hawiye siyaasiyiintooda iyo xasan sidaas ay isku raaceen marka oo weliba awoodda dowladnimada ay rabaan inay ku gumaadaan raxweyn iyaduna ciidamadii 90% ay tahay oo hadda wax fahamtay go'aan ku gaadhay in ay dagaalanto hawiye la dagaalanto xamarna xataa gacanta la isla galo hadday go'aankeedu uu yahay hawiye ma helayaa sidii daarood 91dii uu ka helay uu gaaday oo kale uu taanga iyo kaakuma ugu shubay raxweynse juqraafiyan markaa fiiristay hadda iyo waqtigan xuduudeeda iyo sida ay xamar u joogto shacabnimo kaliya aan ugu joogin macnaheedu raxweyn uu taanga iyo kaakuma ma lagu shubi karaa laguma shubi karo daaroodna nimankii muusan dagaalamin aniga siyaad baray daarood badan baa ka soo horjeeday hase yeeshee waxa weeye digli mirifle maanta waxa waaye macnaha dawlad weyn oo dhabarku ay soo taageersanna waa leeyihiin xuduud ciidan iyo dadna waa hayaan horeba dad waad u hayseen waxa weeye hub fiicanna waad hayseen hadduu ilaahay ku roon waxaana ugu baaqayaa maaragtay madaxweyne axmed madoobe saraakiisha ciidamada ee gobolka gada joogtay jubbada dhexe inay hadduu ilaahay ku roon yahay taageeraan maamulka koonfur galbeed sidoo kale deni waa inuu isagana taageero waxaadna ogaataan waxa waaye lafta gareen maanta waa difaaciini koowaad maamuladaasoo haddii isaga laga takhaluso idina waad ku xigi doontaan waxaad moodaa inay gogoldhig u tahay ciidamada cusub ee lasoo wado oo la doonayo waddanka lagu qabsado iyadoo magac qabiila raggii xalay macallin oo muqdisho ka lahaa maaragtay annagoo irir Soomaali ah faa'iidada ay noo soo wadaan muxuu yahay hadduu ciidamo badan oo carabi u yimaadaan oo ay xoog nagu helaan waxaanay kooxdani waa koox qabiila waa koox maaragtay bilaqa waa koox fashilan waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee xaquuqdirka jecel ee xaq iyo wanaag jecel inay ka hortagaan kooxdan maafiyada ee doonaysa inay burburintooda cusub ay doonayaan inay maaragtay lagu noqdo 91kii wadee hore u sheegeen bageeli bay ku qortay 91 wadankii waaba ku jira 91kii maxaan ku naqaanaa waxaan ku naqaanaa qabiilo isdilay dawladda dhexe oo burburtay ee maaragtay dhibaato ka dhacday qabiilo mikrafoon maayga soo fariista wixii oo dhan waa taagan yahay ciidamadii oo la xasuuqay ciidanka xoogga dalka oo kala cararay wixii oo dhan hadda waa taagan yihiin xasan sheekhna waxaad moodaa isaga hadday ciyaar ka ahayd islaahan maaragtay madaxweyne farmaajo uga hanjab horta xasan oo ku bishaarayso xagga Allah laga aqbalay
waddankana naadwankii ku jira haddii waxaan leenahay hadduu ilaahay ku roon yahay xiniyaha soo fuul Soomaaliga way ku aragtaa hadde waaye ma moodaa marka hadda aan kula hadlaayo in ma arkaysa macnii Amiin Jeesow hadalladii uu bariyahan sheegayay isbaarooyinka intaan isbaaradaas la weerarin in waxaan ay isku taxnaayeen oo la isla ogaa waa la isla ogaa isaguna wuxuu ahaa kashaashada la soo fariisiyay uu ahaa raggii daaha dhabarkiisa fadhiyay ama xijaabka noo gashtay inta shareerka qabay baa maanta xagga hore yimid kadib markii dhirbaxadii ugu horeysay ninka Amiin Jeesow oo sharci darro iyo laqdabo ku socday ay ku dhacday ayaa waxaad moodaa in maanta maaragtay fayskii koobaad iyo kuwii daaha dhabarkiisa fadhiyay ay yimaadeen iyagoo maaragtay aan waxba la harin oo ay banaanka yimaadeen marka saan xal sheegay waxa weeye tani hadduu ilaahay yiraahdo gooja hadii labaad bay noqonaysaa hadii isdaafaca dulmi waa dhamaaday naadwankii hadii aynu hurudnay ama maaragtay aynu ku guuldareysanay inaynu dawlad iska hayno maaragtay kooxihii mooryaantaas ka qabanno hadda waxa weeye macnaha Soomaali xoog bay leedahay marka waxaana leeyahay taageerayaasha nabadii nolol waa in madaxweyne lafta gareen iyo maamulkiisa la taageero xukunka isbaarada ilaahay baa quraankiisa ku cadeeyay Puntland isbaaro ma taalo Soomaaliya oo dhan ku nool Somaliland isbaaro ma taalo Soomaaliya oo dhan ku nool shacab laguma haysto laguma dulmiyo khaatuma la kadalika xukunka isbaarada hadii isbaaro la qaaday macnii dawladii dhamayd ee Xasan siyaasiyiintii hawiye ay difaacayaan isbaaro shacabkii oo la nabadgeliyay meesha yaqbari weyna deganaa aan ognahay natiijada ka dhalan doonta maxay tahay hadii ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo la isku dardarsaday qaranka lagu soo weeraro ma arkaysa macnii raxweyn gurigeeda aadana waxa weeye shariicada islaamka isbaaradu suuratul maayida looga waramay maaragtay wasiirka awqaafta dawladda koonfur galbeedna waa ku ka hadlay waa dil oo ay la soo laalaadiyay walibana lugu gacan istaafana laga gooyo meydkiisana aan la aasin halkaana laga soo laalaadiyo waxaan kaloo weeyeen ciidamadii Xasan Sheekh xasuuqay waxay u badnaan laba beelood kow Digli Mirifle labo hawi saraakiisha badankoodu hawi ahaayeen iyo Digli Mirifle oo ku xigtay oo hadda ninkii gaashaan la saraaca ee bilka hor maaragtay Baydhabo lagu dilay agteeda uu kamid ahaa marka Xasan ciidankii wax xasuuqay intii ka soo hadhay ayaa waxa uu doonayaa oo maaragtay uu iyagana xasuuqi karo inuu koonfur galbeed ku geeyo hal dhagax buu rabaa inuu Lubashbir ku dilo waa marka koobaad inuu ciidamada intii ka soo hadhay ku xasuuqo meeshaas waa marka labaad inuu isbaarooyinkii soo celiyo ee dulmigii Shabeellaha hoose ka taagnaa uu halkaan ku qabsado marka waxa leenahay macnaha loo diyaar garoobo waa in la istaafaco way ciidamada Digil aw Mirifle ama Mayland markii isbaarada ay qaadeen dadka lagu kufsanaayo lagu dhacayo gabdhaha yaani shacabkii meesha deganaa hawiye inay nabadgeliyeen ammaan siiyeen la idinma soo dhawaan karo ma arkaysa macnaa annaga amnigiina sugay ay dhahaan si fiican ma yeeleen mise si xun ay yeeleen qofna aan la fiirin qabyaalad aan loo eegin gaal jecel habar gidir abgaal murusade macnii shacab la yiri amaan gala maalkiini hantidiini xoolihiini si fiican baa la yeelay oo Soomaalinimo waxa weey dhaqan Soomaalinimo iyo dhaqan Islaamnimo iyo dhaqan aynu ku dhaqmi jirnay ma aha in maatadii carruurta la iska dilo waxaas waa dhaqan xumo mooriyaantii iyo dadka wax magaratada lagu yaqaano hase yeeshee sidoo kale dawladda koonfur galbeed waa in xafiiska sirdoonku u dhax galo hadda maaragtay wala mareero kale maanta dadkii lagu xasuuqay waa in dawladdu tagto meeshaas waa in la soo qabto nimankii la yiri maaragtay dadkii xasuuqeen sidoo kalena gabadhu abgaalo xaamina ayay hadduu ilaahay ku rooy yahay ayay urduuxeen ninka dadka waa in la soo qabto waa in kaamirada la keeno arintani waxa weeye waxa luqada lagu yiraahdo waxa weeye waa PR waa xiriir dadweyne waa public relation waa in la tuso in badan oo abgaalo la sir doonaa marka inta la sirin waa in dawladdu ka hortagto la soo qabto ninkii gabadha saa yeelay maatadahay saad ogtahay koox kale oo mooriyaan ayaa gabar kale oo maaragtay reer Soomaaliya diiniye saas kale toddobaadkii hore caabud waa duleedka aan dhahay balanballe iyo guriceel dhulku dhaxay ku sameeyay waana kii dadka dhintay marka waxa weeye hadii gabadhaasi ay eey lahayn waxa weeye dawladda koonfur galbeed may magan u ahayd Allah naxariisto waa in dawladdu soo qabato waa in dawladdu sirdoon adag yeelato dad badan oo abeysooyina oo masas ayaa wali ku jira oo dawladdu hunguri uga jira inay dadka mar kale biyaha lacabay ka gadaan oo xaaraanta ugu weynaa marka meeshaas waa in nadaafad ka dhacdo dawladdeena sideedaba koonfur galbeed waa inay muujiso inay tahay mulkiyadaha gobolada kala duwan ee uu ka kooban yahay maamulka koonfur galbeed magaalada beledweyne oo qabiilo kala duwan ay degan yihiin qaybta beesha gaal jecel ay degan tahay waxa laga raadinayay dad raxweyn oo shacab oo rayd oo ma arkaysa dad hubaysan oo gaal jecel ay ka raadinayeen clipku waa soo dhigay
nin hubaysan qof xaafadaadii kula darisa يعني إنا رادس الشعب أن دلا إنا ترى كان قرية وتأذن عادي كرين مجبني معه يدور شعب كودا أنا لا طابنين هنتي دودا يمال كودا جبني ما ويكفوك تاسي ودمبي تاسي وكريمنا الأكتويان وفعل دمبيات مركا هذا لو تطبطنا وحكر دي وحلية بين الشيخ مدوبي الشيخ عبد المدوبي كسوجي ده قبل هذا كونفور قلب الإسلام مركا أنا الماركة مدح برلمان كان بقولها شعب كالصوماليات وحاول نكل يراهدو دائرة بيرجيس واي سماشة واي وام حي سببته سنشر وسمين واي وام حي سببته جناح واي وام حي نكن دجال وجها سببته أنتوا توطك شيء سووا حمد برلمانه ومدولة كورة الشباب يعيد كلا دجال لمي معاملة الإسناء يا قنصناء يا شعب كي الماركة الله دجال لمي سببته الماركة برلمان كدعوه كانوا واي ضل وقبوا واي وأنا قاعد ماركتي قضية المدوب بدوني برلمان بوق قرشوا حصية شيء تاني بوق معه تاني واقف لنت شرعي شريعة إلهي هي دستور الصوماليات نلحل دبانا وقبيل قربانه وطمية وين سيدا نقصها بدن برلمان كله عاديو دم باللجوس وجو الماركة دولة كورية وين ورقد وارنت الله صجره لين كان سيدي سبب وين شرعي عدالة الله وركيره